habeen baa nin guureeyey la sadaqana laylata bisadaqa buu yidhi caawa intaan guureeyo sadaqaa la baxaya muxuu habeennimo u doortay wuxuu rabaa inuu ikhfaa sameeyo inuu ka baxo maxay magac iyo maamuus iyo inaan la garanba ciddan wax sadaqadaysatay qofnaba isagaan ogeyn habeen madow intuu iska baxo inuu cid un lacag dul dhigo ayuu u socdaa ilaahay dartiina inuu la baxo hadhowna aan cidi ammaanin oo la odhanin waa ninkii hebele lacagta badan bixiya ama caynka aan cidiba odhanin oo la garanin idan sadaqadiisa inuu qariyaa buu rabay sadaqada qarsoonina aad ba ajarkeedu u badan yahay nebigu wuxuu yidhi faqaabalahu rajulu fi طariiq danna anahu min ahli اlfaqri faacطaahu sadaqatah habeennimadii isagoo xoolihii la guuraynayo isla dadka masaakiinta iyo foqorada sii ayaa mid ka soo baxay mid baa ka soo horbaxay kiibuu wuxuu mooday inuu miskiin yahay kiibuu xoolihii intuu ku raray buu iska dhaafay intuu xoolihii siiyey ayuu iska weydaatay subaxii markii waagii bariyey ayuunbaa tuuladii magaaladii layskuruuraystuuno show ninkan xalay xoolaha lagu rarayba waa tuuggii magaalada tuug buu ahaa guuraynayo tuuganimo u socday dabeetana magaaladii baa soo toostuun oo subaxii laleeyahay xalayto tusaddiqa alaylata calaa saariq tuug baa xalay sadaqa la siiyo xoole la siiyey ninkii wuxuu is yidhi wallaahi sadaqadaadii halkii aada la rabtay kumay dhicin laakiin ilaahay buu iskaga mahadiyo wuxuu yidhi allahuma laka alxamd calaa dalik ilaahu adaa mahad leh laakiin wuxuu is yidhi taasi malaa waa kaa yaro murkacataye mid fiican oo kale caawa la guuree habeen kaluu haddana sadaqa la guureeyey siduu u socday oo uu yidhi caawana sadaqa la baxee ayaa waxaa ka soo horbaxay siduu lacagtii u siday hantidii ula ordayey gabadh dumarka xunxunaba gabadh xunoo zaaniyadaa ka soo horbaxday dabeetana intuu ku raray ayuu dhaafa waagii baa beriyey magaaladii waxay isla soo kacday iyadoo la leeyahay gabadhii xumayd ee suuqa joogtay xalay midunbaa lacag ku raray oo xoolaa xalay la siiyey ilaahay buu iska mahadiyey haddana wuxuu is yidhi halkii aada la rabtay weli kumay dhicin habeen saddexaadkiiba haddana sadaqa la guureeyey isagoo isla meel fiican aada la dhigtid habeenkii saddexaadna siduu socday waxaa ka soo horbaxay uun magaalada ninkii taajirka u ahaa dabeetana wuxuu is yidhi uun kan habeenka guuraynaya isna waa baahan yahay uun waa ku raray kiina waagii baa beriyo waxaa la yidhi ninkii maalqabeenka magaalada u ahaa xalay mid baa lacag dul dhigay oo siiyey baa la yidhi mid baa hanti helay dabeetana nebigu wuxuu yidhi ninkii riyaa loogu riyooday dabeetana waxaa loo sheegay ru'yo arko riyadii waxaa loo sheegay amaa sadaqatuka calaa saariq falacalahu an yastacifa can sariqatih waxaa lagu yidhi hantidii aada siisay tuuga waxaa la arkaa inuu tuuganimoba dhaafo adigu ilaahay dartii baad ula qasdidee hantidii tuuga gacantiisa ku dhacday falacalahu waxaaba la arkaa inuu yidhaahdo war hanti heshayo dadka waxooda u nabadgeli hantidii aada siisay baa la yidhi zaaniyadda gabadha xunna falacalaha an tastacifa waxaa la arkaa iyana inay zinadiiyo suuqalkiiba iska dayso marka horeba in hunguri waday baa laga yaaba ayay suuqa u gelaysay inay istidhaahdo xoolaad heshaye khasisnimada iskaga baxa si aada haniga ku rartayna baa la yidhi waxaa la arkaa in uu isna is yidhaahdo war waxaan hanti alla kaa siiyey wax ka bixi dadkuba waa kan wax sadaqadaysanaye idan ninkan camalkiisii isagu meel buu la qasdiyey ugamasase dhicin haddana waxaa loo tilmaamayaa in laga aqbalay macnuu muxuu sheegayaa waxa uu tilmaamayaa niyadu iyo qasdigu iyo maqsuudka uu qofku leeyahay acmaasha inay meel fog gaadhsiiso